Assalaamu calaykum saaxiibayaal, waa anigu Amo Carafaad. Waxaan maanta idinku soo dhaweynayaa muuqaal aad u xiiso badan. Muuqaalkan waxa uu noqon doonaa midkii ugu horreeyay ee socdaalka dunida aan ku mari doono Sooyba furayay. Barnaamijkeena socdaalka dunida waxaan kusoo qaadan doonaa wadamada dunida iyo goobaha taariikhiga ah ee aan u aragno markaasi dadweynaheena iyo shacabka ku xidhan janaalkeena inay faa'iido ka heli karaan. Barnaamijkeena socdaalka dunida waxaan u dhigi doonaa qaab 10 qodob ah, isla markaasina hadba magaalada ama goobta taariikhiga ee markaasi aan tagno ayaan 10 waxyaabood oo xiiso badan idinka soo gudbin doonaa. Maanta kamarada waxaan ku jeedinaynaa waddanka Austria ee magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi ah. Sida aan soo xusnay, waxaan la wadaagi doonaa 10 waxyaabood oo waddankani gaar kaga yahay wadamada kale ee dunida. Inta aynaan qodobkeena ugu horreeyay guda gelin, waxaan ku xasuusinayaa inaadan ilaawin inaad channelkeena subscribe saarto gambalelkana furato haddii aad ka mid tahay asxaabta channelkeena ku xidhan muuqaalka like saar. Austria iyo Vienna waa halkee? Austria waa waddan ku yaal bartamaha qaaradda Yurub, dadkiisuna ay yihiin ilaa 9 milyan oo qof. Vienna waa magaalo madaxda dalka Austria. Magaaladani waxay dhacdaa dhinaca bari ee dalka, waxaana ku nool 2 milyan oo qof. Xadiiqadda xayawaanaadka ee dunida ugu weyn, sidoo kalena weli furan, ayaa ku taalla gudaha caasimadda magaalada Vienna, waxaana lagu magacaabaa Vienna Zoo. Waxay ku taallaa Schönbrunn Palace. Xadiiqadan xayawaanaadka waxaa la aasaasay sanadkii 1952 ilaa iyo maantana waa ay furan tahay. Gudaha xadiiqadan waxaa ku nool in ka badan 700 oo noole oo kala duwan ama kala nooc ah, waxaana xadiiqadani ku guuleysatay inay tahay tan ugu wanaagsan ee ku taalla qaaradda Yurub. Sidoo kalena waxaa loo aqoonsaday inay tahay xadiiqadda xayawaanaadka tan ugu quruxda badan dunida oo dhan. Taalada caanka ah ee Stalin. Joseph Stalin-kii keligii taliyaha ahaa ee markaasi sanadihii 1929 ilaa 1953 hogaaminayay Midowgii Sofiyeeti ayaa taalo caan ah oo ilaa maanta lasoo booqdo kule gudaha magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid taalada Stalin maxaa macnaa oo ku jira markaasi. Waqtigii dagaalkii labaad ee dunidu socday, labadii garab ee markaasi hirdanka ka dhaxeeyay ayay ka kala tirsanaayeen Austria iyo Stalin-kii Sofiyeetka ama Ruushka hogaaminayay. Isla markaasina dabayaaqadii dagaalkii labaad ee dunida waxaa laga gacan sarreeyay xulafadii Austria iyo Jarmalka, waxaana dagaalkaasi ku gacan sarreeyay xulafadii Midowga Sofiyeeti iyo Mareykanka. Taaladan Stalin ee ku taalla gudaha magaalada Vienna waxay ku taallaa xaafadda 12aad, waxaanay saaran tahay gidaarka hotel uu deganaa Stalin waqtigii uu Vienna ku noolaa. Laga soo bilaabo 1949 ilaa iyo waqtigan taaladaasi hotelkii ayay ku taallaa, waana la soo booqan karaa. Sababta loo burburin waayay taaladan waxaa qayb ka mid ah heshiisyadii la kala saxeexday kadib dagaalkii labaad, oo ay ka mid ahaayeen inaanan waxyaabaha taariikhiga ee Sofiyeetka waxba laga bedeli karin. Xabaalaha ay ku aasan yihiin in ka badan inta magaalada ku nool. Gudaha magaalada Vienna waxaa ku yaalla qubuuro lagu magacaabo Central Friedhof oo la micno ah xarunta xabaalaha. Sidaynu bilowga muuqaalkeena ku soo xusnay, magaalada Vienna waxaa ku nool 2 milyan oo qof, laakiin arrinka la yaabka leh waa in xarunta xabaalaha ay ku aasan yihiin 2 milyan iyo 800 kun oo qof oo in ka badan inta ku nool magaalada. Haddii aynu si kale u dhignana, dadka xabaalahan ku duugan ayaa ka badan dhammaan dadka ku nool magaalada. Dalka Austria iyo caasimadda Vienna waxaa mara webiga labaad ee ugu dheer qaaradda Yurub, waxaana lagu magacaabaa Danube River. Webigani wuxuu maraa badi bartamaha iyo koonfur bari ee qaaradda Yurub, wuxuuna ka soo bilowdaa Kaynta Madow, wuxuuna sidoo kale ku dhammaadaa Badda Madow. Wadamada webigani Danube River uu maro waxaa ka mid ah Ukraine, Germany, Romania, Hungary, Austria, Serbia, Bulgaria, Slovakia iyo Croatia. Webigan ayaa webi hoos iyo hareerahaba loo fidiyay si xajmigiisu u weynaado, sidaasina waxay wadamadaas u maraa u isticmaalaan inay u adeegsadaan sidii badii oo kale, iyagoo doonyaha waaweyn ee xamuulka iyo dalxiisku iskaga kala gooshaan wadamadaasi iyagoo isticmaalaya biyaha webigani Danube River la magac baxay. Qaybihii magaalada loo qaybiyay. Taariikhda waxaa laga yaabaa in inta badan dadku ay aad u yaqaanaan gidaarkii magaalada Berlin kala qaybinayay, laakiin qaar badan aanay aqoonsanayn in magaaladan Vienna ay soo martay waqti magaalada la kala qaybiyay. Markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida oo markaasi lagaga gacan sarreeyay xulafadii Jarmalka iyo Austria ay hogaaminayeen, wadamadii dagaalka ku gacan sarreeyay ee Faransiiska, Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowgii Sofiyeeti ayaa hal mar wada qabsaday magaalada Vienna,
waxaanay u kala qaybsadeen 4 qaybood oo aan midba kale uga soo gudbin amar la'aan. waxaanay kala qaybinta magaaladan soo afkooday markii la saxeexay heshiiskii Austrian State Treaty oo markaasi wadamadii magaalada haystay ee Faransiiska, Mareykanka, Ingiriiska iyo Midowga Sofiyeeti ay 1955 saxeexeen heshiis ah in dhammaan dhulka Austria ay iskaga baxaan iyaga iyo ciidankooduba Austrian ay u aqoonsadaan wadan madax bannaan. Islaamka Vienna iyo Austria. dalkan Austria waxa uu leeyahay taariikh dheer oo dadka Islaamka khuseeya. Austria waa mid ka mid ah wadamadii ugu horreeyay qaaradda Yurub ee dowladoodu ay aqoonsato diinta Islaamku inay ka mid tahay diimaha Austria laga ictiraafsan yahay, waxaana sharcigaasi la ansixiyay 1912 oo waqtigan laga joogo wax ka badan 100 sannadood. sababta ugu weyn ee diinta Islaamku u noqotay mid dalkan laga ogol yahayna waxa ay ka soo bilaabatay taariikhdu markay ahayd 1908 waqtigaasi boqortooyadii Austria-Hungary waxay qabsatay ama xukunkeeda ay hoos keentay dhulkii la isku oran jiray Bosnia iyo Herzegovina oo dadka degan ay badi ahaayeen dad muslimiin ah. magaalada Vienna oo ah caasimadda waddankan Austria waxa ku yaala masaajid aad u badan ilaa ay gaadheen in dhammaan xaafadaha ama badi xaafadaha Vienna ay masaajid yeeshaan, ilaa xaafadaha qaarna ay gaadheen in 2 masaajid ama ka badan ay yeeshaan. mid ka mid ah masaajidada magaaladan Vienna waa kan lagu magacaabo xarunta Islaamka ee Vienna oo ah kan ugu caansan ama ugu weyn magaaladan ama dalkani. salaadaha ciida ayaa ka mid ah waqtiyada Islaamku ay isugu yimaadaan masaajidkan si ay markaasi u ogaan salaada ciida. sanadkii ugu dambeeyay 2022 masaajidkan waxaa ku soo baxay dad gaaraya 25,000 oo qof oo muslimiin ah kuwaasi oo hal goob ku wada oogay salaadii ciida. Soomaalida Vienna iyo guud ahaan Austria. waddankan shakhsiyaadkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed waxay soo gaadheen 90-meeyadii markii ay dowladdii Soomaaliyeed burburtay, kuwaasi oo muddo kadib uga sii hayaamay ama uga sii gudbay goobihii Soomaalida ku badnaayeen sida UK, Sweden iyo wadamo kale oo markaasi jaaliyadda Soomaalidu ay aad ugu badnaayeen. mawjadii labaad ee Soomaalida dalkani soo gashay waxay yimaadeen taariikhdu markay ahayd 2000 oo haatan laga joogo 22 sannadood. markan waxaa soo batay ama kor u soo kacay Soomaalidii deganeed guud ahaan waddanka Austria waxaanay gaadheen 185 qof. intaasi wixii ka dambeeyay mar ka sii dambeeya waxaa soo badatay tirada Soomaalida waddankan magangeliyada weydiisanaya ama iska dhiibaysay. sanadihii 2008, 2009 iyo 2010 ayaa Soomaali tiro fiican leh waddankan magangeliye ahaan u soo degeen. intaasi wixii ka dambeeyay Soomaalidii ugu badnayd ee waddankan soo gashay waxay dhacday waqtigii qaxootiga ugu badani qaaradda Yurub ama Midowga Yurub soo galeen oo ahaa 2015 waana waqtigii qiyaastii 60% Soomaalida degan waddankani ay soo galeen. tirada guud ee Soomaalida waddankan degani waxaa lagu qiyaasaa 8,000 oo qof. magaalada ugu badan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan degan ay ku sugan yihiinna waa caasimadda waddankan Vienna oo ah halka hadda aan muuqaalkan idinka soo gudbinayo. waxaa soo raaca magaalooyinka Linz, Salzburg iyo Innsbruck oo markaasi Soomaalida degani ay yihiin kuwa aan tiro badan lahayn. Austria, dal qani ah miya? dalkan yar ee Austria waa mid qani ah marka loo eego dhaqaalaha dalka iyo tirada dadka ku nool dalkan. meelaha ugu horreeya ee dhaqaalaha xoogga badan ee dalka ka helo ama dhaqaalaha dalkani ka soo xaroodo waxaa ka mid ah warshadaha birta sameeya oo kaalin muhiim ah ka ciyaara dhaqaalaha dalka. marka la eego liiska kotonka waddan ee dunida ugu taajirsan, dalkani Austria waxa uu kaga jiraa kaalinta 14aad. wadamada ka horeeyana waxaa ka mid ah Luxembourg, Singapore, Ireland, Qatar, Switzerland, Imaaraadka, USA, Norway, Denmark iyo Netherland. wadamada kale ee markaasi dalkan ka hooseeya ama waddankani ka qanisan yahayna waxaa ka mid ah Sweden, Germany, Australia, Belgium, Finland, Kuwait, France iyo Saudi Arabia. waxaa iga xasuusinah waxa ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyo wadamada qaninimadoodu ma aha waddankaasi inta lacag ama dahab dhex taal ee waa hantida dalkaasi sida ay ugu beegmayso shacabka dalkaasi degan. dagaalkii koowaad ee adduunka iyo Austria. sida taariikhda la isku raacsan yahay, Austria waxay ahayd waddankii ama xukuumaddii sababteeda uu ku bilaabmay dagaalkii gumaadka badan sababsaday
ardayda adduunka oo dhanna mid kasta uu taariikhda dagaalkaasi iskuulka kusoo dhigtay. Waa dagaalkii koowaad ee adduunka. Waqtigii ka horreeyay inta aanu bilaabin dagaalka koowaad ee dunidu, Austria waxay ka koobnayd boqortooyo haysataa dhul badan oo markaasi la odhan jiray Austria-Hungary, kana koobnayd Austria iyo Hungary. Dhul badan oo Bosnia ay ka mid ahaydna xukunka Austria-Hungary ayaa ka arrimi jiray markaasi. Taariikhdu markay ahayd 1914, wiilkii uu dhalay boqorkii ka talinaya Austria-Hungary oo la odhan jiray Franz Ferdinand iyo xaaskiisii ayaa u safray Sarajevo oo markaasi Bosnia ka tirsanayd. Wiilka boqorka ayaa halkaasi kormeer ku tegay maadaama ay ka talinaysay boqortooyada Austria-Hungary oo aabihii hogaamiye ka ahaa. Wiilka boqorka iyo xaaskiisa ayaa intii ay ku guda jireen kormeerkoodii Sarajevo ee Bosnia ayaa halkaasi shirqool loogu dhigay, waxaana halkaasi ku toogtay mid ka mid ah Serbiyaakii kasoo horjeeday xukunka Austria-Hungary in dhulkooda ka arrimiyo. Goobtaasi wiilka boqorka kaliya laguma toogin, waxaa sidoo kale lagu toogtay xaaskiisii oo safarka ku wehelinaysay. Toogashadaasi kadib waxaa dagaal laba saf loo kala baxay ka dhex qarxay gudaha qaaradda Yurub, waxaana dagaalkaasi socday ilaa 1918, waana dagaalka dunida oo dhan caan ka ah ee dagaalkii koowaad ee adduunka. Markii uu dagaalkani soo idlaaday, Austria waxay ka mid ahayd garabkii dagaalkaasi lagaga gacan sarreeyay. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aad channelkayga soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe siiso si ay ii dhiirigeliso si aan muuqaalo kale oo kan la mid ah ama kasii wanaagsan aan usoo sameeyo. Haddii aad asxaab channelka ku xidhan aad ka mid tahayna, muuqaalkeenna like saar, wixii faallahana qaybta commentiga nagula wadaag. Mahadsanid.